السلام الله عليكم walaalayaal waa idin salaamay dhamaantiin waxaan ku guda jirnaa fiidiyoyaalkii aan wax ku kala faa'iideysanaynay si aan u horumarino ama caafimaadkanaga u wanaajino waxaan ka jawaab rabaa su'aal uu nin saaxiibkay soo weydiiyay oo uu yiri warniyahow maxaa jim la aadaa ama cunto la karsadaa waxaan ba ka bixi lahay caajis iyo daal aniga dhan ayaa isaaran marka waxaan rabaa inaan su'aasha si kooban uga jawaabo waxyaabaha keeni kara si aad caajiska iyo culayska isaga dulqaadid noloshaada aad u wanaajisid midda koobaad waxa weeye haddii horta aadan isbitaal dhawaan ka soo bixin oodan qaadanayn daawooyin kuwaas oo laga yaabo inay culayska iyo caajiska ku keenayaan sababaha soo socda ayaa ku keenaya caajiska iyo culayska faraha badan midda koobaad waxa weeye haddii aad tahay qof jirkiisa baruur fara badan saaran tahay hadda waxa tahay qof maanta dhan culays sida maanta dhan culays baa ku saaran haddaad taagan tahay culays baa ku saaran haddaad fadhido culays baa ku saaran haddaad jiifto culays baa ku saaran baruurtu wax shaqo ama qabato sida murqaha oo loo isticmaalo inay wax shaqo lagu qabto oo kale ma ay ahan marka haddii ay tahay jirkaagu hadduu baruur badan saaran tahay waxa kugu imaanaya caajis iyo culays fara badan maxaa yeelay waa adigu jawaano ciida maanta dhan aad la wareegayso ma taas waxaad wax uga qaban kartaa adigoo cuntadaada wanaajiya jimicsigii sameeya sidii aan fiidiyoyaalkii hore uga hadalnay ugana hadli doono kuwa soo socda tan labaad waxa weeye waxaa laga yaabaa inay cuntadaadu xun tahay haddii aadan cunin cunto nafaqadeedu isku dheellistiran tahay waxaa kugu imaan doona caajis iyo daal fara badan maxaa yeelay cuntadu waa shidaalka jirka bini'aadamku ku shaqeeyo haddii aadan cuntada saxda ah jirkaaga siina haddii si fiican uma uu shaqeynayo waa adoo gaarigaaga faraxal ka buuxshay oo kale ahay weega saarada meel miyuu dhaqaaqa brrno meel uma soconayo moogta taasuna waxaad wax uga qaban kartaa adiga oo cunto fiican oo isku dheellistiran cuno kana fogaada cuntooyinka la process gareeyay iyo kuwa aan caafimaadkaaga u fiicnayn haddii aan taas ka sii hadalno waxaa laga yaabaa inay cuntooyinkaagu fiican yihiin laakiin jirkaaga aysan ku jirin vitamino iyo minerals kugu filan waliba haddii uu kugu yahay vitamin D-ga oo ah mid aad u muhiim ah khaasatan ragga maadaama uu caawiyo soo saaritaanka hormoonka testosterone-ka waxaad samayn kartaa waxaad tigi kartaa supplement store-ka waxaadna soo gadan kartaa multivitamins iyo vitamin D supplements ayaad soo gadan kartaa tan saddexaad ee kugu keeni karta caajiska iyo daalka waxa weeye haddii aadan hurdo fiican seexan waxaa jirka bini'aadamku waxa uu u baahan yahay ugu yaraan 7 saac ilaa 8 saac oo hurdo quality ah hurdo quality ah waxaa la rabaa markaad soo kacdid inaad dareentid nasashada wax ulaysa jirkaaga uusan saarnayn si aad hurdadaada u wanaajisid waxaad raacdaa talooyinkan waxaad yaraysaa koffiga iyo shaaha iyo waxyaabaha kale oo maadada caffeine-ka la dhaho ku jirto sida cabitaanada energy-ga waxaad yaraysaa galabkii haddaad habeenkii rabtid inaad 4 saac habeenimo aad rabtid inaad seexatid iska jooji wixii ka dambeeya duhurnimada wixii ka horeeya shaahaaga iyo koofigaaga iyo energy drink-kaaga cab laakiin galabkii ha isticmaalin sidoo kale waxaad samaynaysaa inaad seexatid meel quiet ah qolkaaga waxaa la rabaa inuu wax buuqa uusan lahayn sidoo kale si aad hurdada u wanaajisid waxaad samayn kartaa qolkaaga meesha aad jiifanaysid mugdi ayaad ka dhigi kartaa waxaad kaloo samayn kartaa inaad waqti go'an seexatid waqti go'anna soo kacid macnaheedu yahay haddaad 4 saac habeenimo hurdada aad seexatid sidaas samee habeen kasta waxaadna soo kacdaa waqti isku mid ah taas waxay keenaysaa jirkaagu inuu la qabsado hurdada taasuna waxa ku siinaysaa hurdo quality ah waxaad kaloo samayn kartaa ka fogo waxyaabaha maandooriyaalka iyo sigaarka taas hurdada ayay wax dhibaato u geystaan sidoo kale waxaad ka fogaataa hurdada inta lagu guda jiro markaad musqusha u soo kacdo kale inaad teleefankaaga iyo fiirsid ka fogow iyo hameenkii inta aad hurdada aada seexan ka hor maxaa yeelay lightka blue-ga oo ka imaada shaashadaha waxa uu maskaxda ayuu wax yeelayaa taasuna hurdadaada ayay wax u dhimaysaa
waxyaabaha kale laga yaabo in culayska kugu hayaan laakiin aan sida kuwii soo sheegay u weynayn waxa laga yaabaa hadduu stress ku hayo hadduu depression ku hayo hadduu cudurka sonkorowga ku hayo kuwaasuna waa ay keenaan laakiin saddexdaas ayaa ugu daran oo keena culayska guud iyo caajiska ka faa'iideysta waa mahadsantihiin